daawadayaal wardegdega ma ku sugan tahay dalka Turkiga waxaan idin wadaagi doonaa horta waan islaamay marka hore haddii aad gudaha dalka Turkiga ku sugan tahay waxaa jirta waxyaabo fara badan oo laga yaabo inay ka qarsoon yihiin balse dhacdadan hadda idin wadaagayo waa mid kamid ah dhacdooyinka idinka qarsoon mudana inaad markaas si weyn uga qayb qaadataan wiilkan Soomaaliyeed ee halkan idinka muuqda wajigiisuna aad moodo in uu zaaid u bararay waa mid kamid dadka ku dhibaataysan gudaha dalka Turkiga sida qoraalka halkan idinka muuqda ama ciwaankiisana uu ku qortay waxa uu ku qortay dhibane qarsoon waa sida isagu ku qortay waxaan halkan idinka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed ay horta muuqaal soo duubay wuxuu sheegay inuu garab iyo gaashaanba u baahan yahay la xiriira in la caawiyo dalka Turkiga waxaan la soconaa haddii aadan haysan dhaqaale iyo wax la mid ah in ay xaaladaadu tahay mid aad iyo aad u liidata oo laga yaabo mararka qaar hospitaaladu intay ku nacaan aad weydaba meel markaasi aad dhakhtarba aad ka martay sabab la xiriira jeebkaaga oo markaasi dayacan ama wax buuran aysan kugu jirin haddaba haddii aad ku sugan tahay gudaha dalka Turkiga iyo sidoo kale guud ahaanba caalamkaba waxaan mar koobaad mar labaad iyo mar saddexaad ba idin codsanaa in walaalkaasi Soomaaliyeed aad caawisaan markii aan daawaday aad iyo aad baan uga murugooday waxaan idin codsanayaa horta muuqaalka marka hore aan idin daawadsiiyo isaga qudhiisu oo arintaasi ka hadlaya السلام عليكم Soomaaliyeed ayu salaamna waa joogtaan hada idin dhihi jiray walaalayaal oo xanuunsanahay badbaadi hada idin dhihi jiray maantii waa ka tagtay xaalada maraa bal fiireen wajigayga si u bararsiin noloshayda daqiiqad walba oo noloshayda ku soo saacido halashay ku tahay ilaahay ma uusan dhigin laakiin idinkaa dhexe 7 sano idin dawtaana idin leeyahay Soomaaliya aniga noloshayda halis bay ku jirtaa Soomaaliya noloshayda halis bay ku jirtaa Soomaaliya wax ay qabto waa ay dhaashaan video dambo oo halkan aan soo dhigo maanta ugu dambeysay biswa marxaladda ku sugnaa fiir وجدا انتو قفك هلا Soomaaliya qofka intuu hadlay waxa uu qabo laakiin hadalka hadlaa dhib u yahay inta video idin duubi jir oo dhan dhib igu ahaa waa wadkiisan jir hadda meeshii laga dhaqay maaha shalay 12 ilaa darad 11 arbaashi liigu dura waa laga daal jirkay xididada way xiran yihiin meel laga dhaqo malaha qofka meel laga dhaqo dil waayna biswa waa dhamaatay wax lagu soo sameeyo ka telefoonka waxaan la tawar darro wajiisa soo barsiin marka Soomaali intii la xariis leh intii wajiga ka naxday hay kacda waa badbaadin kartaan ilaahay ka soko waa badbaadin kartaan badbaadiyo inta soo mar عداقد qabsaday war halay caawi aade daawadayaal ugu dambeyntii muuqaalada oo dhaadheer kama goyon karayno inaan muuqaalkiisa dhan wada baahina sabab la xiriira inaan nuxurka soo koobno ayaan rabnaa meel kale idinkoon marayn isaga ciwaankiisu horta waa kan kow sidoo kale lambar ayuu leeyahay oo waxaan dhigi doonaa qaybta commentiska halkaas ayaad kala xiriiri kartaan sidoo kale wixii intaas faahfaahin dheer isaga ayaa wixii information ah idin siin doona isaga la xiriiri doontaan si gaar ah dadka Soomaaliyeed ku sugan gudaha dalka Turkiga 100 teelo ama 20 teelo ama 50 teelo ama 200 teelo hadba wixii aad u dirto waxa laga yaabaa inay meel weyn u gufayso ama se bulsho fara badan oo wuxuu u soo dirtay in waxaasi wuxuun ay u noqdaan hooyadii mar dhexdaas muuqaal ay duubtay oo waxay kaga codsanaysaa bulsho weynta iyo sidoo kale dadka caanka ah tusaalahan dadka caanka Soomaalida dhexdeeda ah oo ay leedahay wiilkaygu aad buu markaasi u tabaaleysan yahay dhaqaalana ma haysano waxaan idin codsanaa inaad wixii aad nagu awoodaan aad nagu kaalmaysan waxaan la soconay waayadii hore qarniyadii hore ama xilliyadii hore in dadka Soomaalidu marka ay baahi iyo wax la mid ah dareemaan ama ay xaaladdu ku cakiranto in masaajidada dadka looga kici jiray
ama culimmada la aadi jiray. Culimmadii ayaa la aadi jiray, waxaa barnaamijka looga sheekeyn jiray. Kadib odaygaas ama culimkaas ayaa waxaa laga yaabaa inuu masaajidka intuu tago uu dadka wax ku weydiiyo. Hadda tii oo dhan way kasoo gudubtay. Qofka xanuunsanaya ama dhibanaha ama si kasta xaaladdu say doonto ha noqotee wuxuu aadayaa qofka caanka ah. Tusaale ahaan qof dadka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayuu muuqaal usoo duubayaa oo leeyahay arrintaas iyo arrintaas. Marka waxaad moodaa culimmada doorkooda inay gabeen, balse muuqaalkan inaad sheer garaysaan. Wiilkaasi Soomaaliyeedna ciwaankiisina waa kaas, lambarkiisuna waa kaas. Wixii aad awoodaan inaad markaasi ugu hagaajisaan waad mahadsantihiin saaxiibayaal.